munaasabad ballaaran oo si heersare loo soo agaasimay oo ay ku qalin jebinayeen 80 arday oo xirfado kala duwan ka bartay xarunta shaqada ee Boorama Youth Job Center ayaa maanta lagu qabtay hotel Rays ee magaalada Boorama. Xafladda qalin jebintan oo ay ka soo qayb galeen waalidiinta ardayda, mas'uuliyiin iyo marti sharafad u tiro badan ayaa ugu horeyn wax faahfaahin ka bixiyay maamulaha xarunta Boorama Youth Job Center Mudane Ismaaciil Aadan Meecaad. walaalayaal ilaahay mahadi subhanahu wa ta'ala mar saddexaadkii noo suurtageliyay inaynu goobjoog ka ahaano dufcadii saddexaad ee dhameysatay xirfadaha farsamada gacanta ee kala duwan ee xarunta shaqada ee Boorama ay bixisay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxa aad barateen inuu dhamaantiin idinku anfaco. walaalayaal waxa xaruntan la furay qiyaastii 2 sano iyo bar muddo hadda laga joogo. dufcadii saddexaad oo 300 oo qof iyo waliba saayid ay isku noqonayso inta xirfadaha kala duwan ee farsamada haddaad maqashaan waa waxyaabo aan dad aad u fara badan hal mar wada gali karin oo lagu shaqaysan karo oo ka mid tahay sidee solarka loo sameyn karaa, sidee farshaxan waxa la sameeyay la iibin karo loo sameyn karaa, hadii dhaqanka ay qayb ka mid noqon karto, macmacaanka sidee loo sameyn karaa. waxa hore loo qaatay dawaarkii, waxa hore loo qaatay yadna xirfado ilaa iyo 10 xirfadood oo kala duwan ah oo alxamdulillah dadkii ku shaqaystay qaar ka mid oo badan had arkayso iyagoo maanta yani dadkii bartay qaar ka mid ah arkayso ayagoo ku shaqaysanaya. walaalayaal ujeedaduna taas ay ahayd intaas waa inta xirfadda farsamada gacanta baratay. waxaa dheer dhalinyar kale oo aad u fara badan oo tiradoodu 500 ay kor u dhaafayso oo iyaguna qaatay tababaro la xiriira sidii ama uu shaqo u raadsan lahaa waxa loo yaqaan job hunting skills ama uu shaqo u abuuran lahaa. laba tababaro kala duwan oo dadka qaatay tiradooda inta kor u dhaafayso. waxyaabaha la yaabayso waxa ka mid ah xaqiiqo jirtana ama qofku jaamacada ka soo baxo ama yaanu ka soo bixin. waxyaabo waxaad moodaa baahi guud oo jirta oo ka mid tahay sideen u diyaariyaa CV-gayga, yani meelo kala duwan kaliya annaga maahan, meelo kala duwan waad arkaysaa qofka isagoo jaamacada ka soo baxay caawimaad u baahan yahay. ceebna maaha hadduu caawimaadii soo raadsadana uu helayo. intaa waxaa dheer walaalayaal tiro ilaa 3,000 oo qof ku dhow oo iyaguna ka faa'iideystay khadamaadka kale xaruntu bixiso oo ay ka mid tahay yani waa meesha dhalinyartu maanta haddii ay wax ku saabsan shaqo raadis aw helo aw imaanayo cidii foomka kala caawin lahayd, cidii xogta shaqooyinka jiraba la wadaagi lahayd, haddii uu shaqo soo arkana qaabku dalban lahayd ka caawin lahayd. badanka qofka saaxiibka ah ama qofka qaraabada ah ama meel ka shaqeeyo baad raadin jirtay inaad weydiiso, laakiin dad shaqaalo inta u diyaariyay goobta ay ku joogtaa inay tahay goobta shaqada ee Boorama. alxamdulillah ilaa 3,000 qof dad ku dhow inta liiska ku jirtaayna ay tahay dadkii khidmaadka kala qaatay. inta waxa ku dheer xaflado kale, barnaamijyo kale oo dhalinyarta wacyigelin ah oo iyadu usbuuc kasta si joogta inta badan usbuucda si joogta u dhici jirtay kuwa bilayaal ah oo dhiirigelinta iyo tusaaleynta iyo hagidda dhalinyarta ee qayb weyn ayada lafteedu ka qaadanaysay. kolley khadamaadka waxa xaruntu qabanaysay muddada ay soo jirtay way fara badan tahay. si kastaba ha ahaatee ardayda ka qalin jebisay xarunta Boorama Youth Job Center ayaa waxay barteen xirfado kala duwan sida uu sharaxayo Ilyas oo kamid ah mas'uuliyiinta xarunta Boorama Youth Job Center. waxaan maanta wada joognaa inaan la farxad la qaadano, waqti fiican la qaadano, aanan sugootino dhalinyarta dufcadda saddexaad ka dhameynaysa Boorama Youth Job Center. dhalinyarta kala duwan waxay kala barteen xirfado kala duwan oo xirfadaha gacanta. waxa ka mid ah solar installation, waxa kaloo ka mid ah video production. xirfadaas oo ahayd inay dhalinyar lagu train-gareynayay fiidiyoyada u duubi lahaayeen oo edit-gareyn lahaayeen oo qurxin lahaayeen. waxa iyadna ka mid ahayd bakery and sweets, xirfada loo yaqaano ama macmacaanka sida keega loo sameeyo biskutada iyo waxa iyaduna sidoo kale ka mid ahayd xirfadaha ay dhalinyarta maanta qalin jebin ay dhameysteen xirfada loo yaqaano handcraft oo ah xirfad dumar bay u badnayd la baray sida loo sameeyo alaabooyinka dhaqanka gacanta laga tolayo. 4 xirfadood dhalinyaro ka kooban maanta insha Allah qalin jebin doonta hadii la raaho. sidoo kale waxaa qalin jebinta xafladan ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jebisay iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay. dhalinyarada quruxda badan leh ee ka qalin jebisay xirfadaha kala duwan
ee aadka dhif iyo naadirka ugu ah guud ahaan geyga Soomaalida ama Somaliland waxaan leenahay hambalyo Allah idinku anfaco cilmiga aad barateen xarunta Boorama Job Center ee hormoodka u yahay Xaaji Ismaaciil Aadan Micaad waxaan leenahay waxa idin keentay wax ku dayasho mudan xirfadda gacanta waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aadka waddankeenu ugu baahan yahay xirfadan muddo soo barnay 6 bilooda oo ayna soo siiyeen walaalaheena sida fiican ugu adeegaya bulshada ee Job Center waxaan u mahad celinayaa oon aad iyo aad u bogaadinayaa walaalkeen Ismaaciil juhdiga iyo dadaalka uu ku bixiyay kobcinta aqoonta dhalinyarada dalka u soo kacaysa dadkii waxna soo baray iyagoon lacag naga qaadin iyagoon maxay haydan wax dakhliyaho annako aan ku bixinay meesha aan jirin inta iyagu is howleen maxay budget iyo kharash ku baxay naga bixiyay xataa agabkii aan wax ku baranaynin siiyay maantana noogu daray inay shahaado na siiyaan qalin jabinteeda xaflad noogu qabtaan hotelkan magaalada ka caanka ah ee Rays marka dhalinyartana saasan u bogaadinayaa meeshana aan wax ka baranay iyo macallimiinteeda maamulaha iyaga Ismaaciilna saasan ugu hambalyeynaya alxamdulillah waxaan u mahad celinayaa maamulka Job Center macallinkayga qiimaha iyo qaayaha leh ee goobta ku sugan isagoo aan ka baxay anigu maanta video production iyo asxaabteeda kale iyo skillsyada kale ee Job Center ay bixiso waxaan maanta farxad gooni ah ay tahay inaan ku sugnaado goobtan farxadda weyn lagu wada qaadanayo marti sharafta isku soo wada duuduuba xarunta Boorama Job Center ayaa noqonaysa xarunta ugu ballaaran gobolka Awdal ee waqtigan dhalinyaradu ka bartaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqo tagaan